بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد webka aan wax ka baranayno waxa waaye maaragtay Madina Arabic. My YouTube waxa weeye lagu yarawan. My Facebook is my Facebook group waxa waaye maaragtay tafsiirka quraanka. maanta waxaan bilaabanaa casharka afraad lesson 4. lesson 4 waa xogaa waxa muddo carabiga inuu soo kordhayo aan soo badanayo ama soo xoogeysanayo dadka bilowga fahmi kara anigay. intaan kaliya kuma koobna casharka hoos wax badan baa ku qoran. casharka badankiisa hoos buu ku qoran yahay. soo hal mar si inuu adkaanin screen baan soo gelinayaa softwarekan ku duubayo waa wuxuu duubi karaa just screenka inta igu jiro laptopka inta ku jirto maaragtay. okay xaruftaan baranayna maaragtay macnahooda insha Allah ilaahna waafajiyo. webka markaa tagtid loogu dhawaaqo waa taaban kartaa click baa ku samaynaysaa saan hore usoo sheegay. على isagaa ku qoran على على saasaa loo qoraa. laakiin dhawaaqida calaa laanka inuu alaf ka dambeeya moodaa. taasoo alaf yarays halkan ku qoray. laakiin carabiga for some reason somehow ya-daasaa loo qoraa calaa. waa on ingiriiska maaragtay waxa kor ahaaday. على الكرسي كرسي كركيسة. على السرير سريرته كركيدا مفتاحي أو هذا ما anything ما عرفت. على on سيد إنجليزي كلته. في NYIN انت كان قرين صور كي قرنايا. في البيت محمد في البيت جذوب بجرا في واحد حلو بجرا مثلا إلى تو إلى فين رايح حدو كرا في عربي وقالت الله جاهن هذا إلى البيت إلى قرية to the house. من from تأكتمت من البيت قرية كيمت from. okay let's continue. afartan kalan ku darayna wixii hoos ku qorana qaybta koowaad waa halkan lesson 4ka. screen walba qaybta soo galaysaan maalin walba soo dhigaan seen waxay hal mar u badan. alifkaas is waay is. هذا بيت وسوق هذا هذا بيت is this a house. أين where إلى أين أنت ذاهب حكيها هذه الساعة قالت أين حكيها where. من هذا who is this أو قالت واحد كان هو قما. من حيوانك إيه لو ما استعمله إيه وحانو لين بني آدم كي الله استعمله. أوكي ماذا what وسوق هذا nothing بس هذا سوق هذا ماذا what أو كلام. أوكي ماذا تأكل محا عنيسا أو كلام.
maadaa turiidu, maxaad doonaysaa. Okay, saas oo kale waay. Lesson 3 aan maaragtay soo dhamaystirnay casharadii ku koobnaa lesson 3 markaan sharaxayay waxaan ku xusay inaan maaragtay markaan dhammaynayo cashar muhiim aan ka hadli doono. Ma ilaawin, waa xasuustaa. haddaan xasuusto aan idin dhahay. waxaan ka fikiray mawduuc caqiida waa maaragtay oo miisaankiisa leh oo culus. marka fahamkiisana uusan sahlanayn qofka naxwaha carabiga inuu ka dhisan yahay waa maaragtay oo alka si fiican u fahmaya maaragtay. ma jecli maaragtay waxaan is dhahay maaragtay carabigaada ku ekaaw naxwaha ha gelin maaragtay caqiida. waqti adag lagu jiro maaragtay diinteenaba dagaal lagu hayo maaragtay war xumada shiilka iyo shaydaanka isku soo ciriirinayo meel kasto. ninkan baa sidaa sheegay, rooyata lagaa dhigto maaragtay lagugu soo caanbaxo, ha noqonine bal maaragtay dib u dhigo. waana idin sheegi karaa min waa jiraan dadaan u sheegay, hal qof aan u sheegay. anyway inaan ilaawin baa idin sheegayay oo maaragtay aan ka gaabsaday. insha allah tacaala sidan waan muhiiman u arkaa sidaan wax dacwad u fidin karaa inuu fidinayo insha allah. wabillahi tawfiiq. waqtiga carabta waxay tiraa kullu maqaam bimaqaal. meel kasta la joogo maqaal bay leedahay, hadal bay leedahay. marka anina naxwan carabi baan ka hadlaya barashadiisa. marka mararkaan bilaabo hadday noqoto insha allah ilaahay jaaniskiisa si caqiida inaan ka hadlo markaasaa insha allah aan ku xustaa. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.